الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 41 بعد 100 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك والحديث الصحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 28 bishii sanad Jumaadul sanad 1439 isla markaana waafaqsan 14 bishii labaad sanadka 2018. waxaanu qaadanaynaa saaka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ama adducaa tajdiid al-iimaan ma yujaddadu bihi al-iimaan, waxyaabaha iimaanka lagu cusboonaysiiyo. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiis Abdullah bin Amr bin Aas warinay wuxuu yiri qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam: inna al-iimaana iimaanku la yakhlaqu wa baliyooba wa duugooba fi jawfi ahadikum, ahadkiin gudihiisa ayuu maartay gudihiisa ku duugoobaya kama yakhlaqu suu duugooba athawbu maradiisa u duugowdo. fas'alullaha alla weydiista an yujaddida inuu cusboonaysiiyo al-iimaana iimaanka fi quluubikum, quluubtiina inuu ilaahay iimaanka ku cusboonaysiiyo. ikhwata al-islaam wal-iimaan, xadiidka nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, nabiga iimaanka ayuu wuxuu ku shabahay iimaanka oo shay macnawi aan la arkaynin, ayaa nabigu wuxuu ku shabahayaa shay maxsuus oo la arkayo. maradu waa shay la taaban karo, loo jeedo la arkayo, indhahaaduna way ku dhici, gacantaaduna way taaban kartaa. iimaanku laakiin shay la arkahayo oo indhahaadu ku dhacayaan maaha ama la taaban karo. marka iimaankii oo macnawi wuxuu nabigu ku shabahay maradii buu ku shabahay. wuxuu nabigu yidhi iimaanku waa duqoobi, waa baaliyoobi, yakhluq yabli wayaan. iimaanku baali buu noqon oo wuu duugoobi oo maaragtay waxa weeyaan hoos buu u dhacayaa ahadkiin gudihiisa isagoo ku jira, sida maradaba ay u duugowdo. maradu markay cusub tahay xoog bay leedahay, difaac bay leedahay, waxbay kaa difaaci. laakiin markaa mar dhaqdi, 2 jeer dhaqdi, 3 jeer dhaqdi, 4 jeer dhaqdi, maradii way daciifaysaa, awoodeedii way tegaysaa, xanaftii xoogga badan way ka baxaysaa, midabkii ay lahayd uu baaba'ayaa, duug bay noqon ilaa marka dambe iska tuurti. iimaankuna macaasida saasay u gelaysaa. macaasi marka soo gashay iimaankaadu hoos buu usii dhacayaa, hoos buu usii soconayaa. idan iimaanka marka waxyaabaha maradaba markii la dhaqo, markaad dhaqdi way caddaanaysaa oo saafi bay noqonaysaa. marka iimaanka waxyaabaha duugnimadka ka saara waxa weeyaan waa ducada iyo camalka saalixa wey. fas'alullaha an yujaddida al-iimaana fi quluubikum, alla weydiista inuu alla iimaanka qalbigiina ku cusboonaysiiyo. waxyaabaha iimaanka cusboonaysiiyo waxaa kamid ah daacada ilaahay baa kamid ah, baryada ilaahay baa kamid ah, camalka saalixa kamid ah, salaada kamid ah, sadaqaadka kamid ah. acmaasha oo dhan iimaanka way kobciyaan. saa darteed xadiidku wuxuu daliil u noqonayaa ahlu sunna wal jamaa, dadka ahlu sunnaha salafka ay dhaheen iimaanku yaziidu bitaaca wa yanqusu bilmacaasi. iimaanku daacada wuu ku ziyaadaa, macaasidana hoos ba ugu dhaca, wuu ku nusqaama. maxaa yeelay markii la leeyahay iimaanku waa baaliyoobahaya, waxa baaliga ka dhigahaya oo duuga ka dhigahaya oo baabi'inahaya waa macaasida wey. waxa tajdiidka ku ridahaya oo cusboonaysiinahaya oo kobcinahaya oo kor u qaadahayana waa cibaadada wey. idan ahlu sunnaha tacriifkooda ay dhahan iimaanku waa qowl iyo i'tiqaad iyo camal, waana ziyaada, daacadu ku kobca, macaasidana waa ku hoos dhaca, hoos ba ugu dhaca. iyo xadiidkan maartu noqonaya daliil. idan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu na barhayaa inaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisano had iyo jeer inuu ilaahay qulubteenna, iimaankeenna, qalbigeenna uu ku kobciyo. ina aliimaana iimaankii la yakhlaqu waa baaliyoobahaya, baali buu noqon iyo duug buu noqon fi jawfi ahadikum, ahadkiin gudihiisa dhexdiisa duug ku noqonaya kama yakhlaqu suu u duugoobo athawu maradi say duug u noqoto iimaankuna duug u noqon. fas'alullaha alla weydiista an yujaddida inuu cusboonaysiiyo al-iimaana iimaanki fi quluubikum. allahuma jaddid al-iimaana fi quluubina, inaan dhahna la rabaa ilaahi subxaanahu watacaala iimaanka quluubteenna ku cusboonaysiiyo. idan ikhwatii fi llaahi, halkaa waxaa ishaare ama noo tusinaya xadiidka daliila inaan had iyo jeer aan tajdiid al-iimaan la nimaan, an nujaddida iimaanana, inaan iimaankeena cusboonaysiino
طاعة أنكو عسبونيسينو صلاة عبادة صدقة أذكارتا دعاء أنتم وحويان صلة الرحمك وحاصلا وحيابها إيمانك عسبونيسين هيوي إن إيمانك مارتان عسبونيسينو هدي اللي عسبونيسين وايو إيمانك باباهيا معاصي سيقول عيس أو سيقل الله يمرك الدنبه إبر بو نقونها بابا بو نقونها باباهيا marka suusa iimaankeena saa u noqonin waa inaan ilaahay weydiisan hadii jeer ilaahay barino inaan maartay daacada la nimaano inaan salaadihi kobcino inaan salaadihi badino sadaqada badino silatu rahimka badino ducada badino allaale wixii daaca oo iimaanka kobcinaya aanu ku dadaal quraan akhriska aan badino adkaarta aan badino waxa soo dhan iimaanka kobcinaysa ama hadii maartay arrinta la sameeyo macaasida iimaanka beenta khaaynimadka maartay salaad la'aanta sadaqa la'aanta يوحي لمدك إيمانك باب إنيسا إن الإيمان إيمانك لا يخلق ودقوب هيا ودوغوب هيا في جوف أحدكم أحدكم قذهيسا كما يخلق سوء الدوغوب أصوب مرضي فاسألوا الله ألا ويديستا أن يجدد الإيمان إيمانك نعسبونيسي في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا إلهي سبحانه وتعالى وحمد سننا بأسماء الحسن والصفات العلى إنه إيمانك إن قلوبتنا نكو عسبونيسيو إيمانك إنه كبعيه بأن الله سبحانه وتعالى ويديسنا هل مربع حديثك وعلنا يا عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم رواه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.